فلوس الصلاة وبرنامج dadka lagu fahansiinayo in dadka maanta jooga hadii la oran lahaa halkii salaad waxa la idinku siinayaa lacag dadkoo dhan ay wada tukan lahaayeen qoyskan waa aabba iyo saddexdiisa wiil oo la kala yiraahdo Maxamed Yaasir iyo Xasan aabaha waxa uu caruurtiisa la jeclaa wanaaga khayrka iyo salaada waxa uu mar walba dib ka mari jiray oo kicinta salaada subax balse iyagu aad ayay u dhibsan jireen aabahood maalin maalmaha kamid ah ay isku soo qaadeen salaada iyo umuuraheeda waxayna hadaladooda kamid ahaa in salaada uu nacsiinayo aabahood balse waxa aaga ka dhawaa aabahood oo dhageysanayay hadalka ay ku hadlayaan waxauna aad uga xumaaday hadalada ay caruurtiisu isdhaafsanayaan لا حول ولا قوة إلا بالله وإيش أسوي عشان أحبب أولادي للصلاة على خير إن شاء الله maalin ayuu iskugu yeeray aabihii wiilashiisii waxa uuna u sheegay ruuxii ilaaliya salaada subax uu helayo 100 riyaal maalintii bishii uu sidaas ku heli doono 3,000 oo riyaal arrintan aad ayay uga farxisay wiilashii أنا أعترف إن كان أسلوبي خطأ لما كنت أجلسكم حق صلاة الفجر ومن هذه اللحظة أنا ما راح أجلسكم وكل واحد يعتمد على نفسه بس اللي يجلس يصلي صلاة الفجر أنا بعطيه 100 ريال عن كل يوم يصلي فيه صلاة الفجر بدون ما أجلسه يعني يا يبا إذا صلينا صلاة الفجر في وقتها تعطينا 100 ريال عن كل يوم؟ لا بعطيكم 3,000 ريال دفعة واحدة نهاية كل شهر قولوا لي ليش؟ ليش يبا؟ إيه قلت لي ليش؟ عشان اللي ما يصلي صلاة الفجر في وقتها بخصم عليه 100 ريال عن كل يوم waxayna isku diyaarinayaan sidii ay ugu kici lahaayeen salaada subax waxay soo iibsadeen saacad toosisa habeenkii Yaasir waxa uu walaalihiis ka codsanayaa inay toosiyaan hadii ay kicin waayaan ay biyo wajiga uga shubaan Allahu akbar Allahu akbar waa xilligii salaada subax adinkeedii la joogo balse kuma ay kicin salaadii adinkeeda waxa hadda soo dhawaaqday saacadii waxay ku kaceen saacadii حسن يلا قوم waa maalintii koowaad Maxamed iyo Xasan waa loo saxay inay maalintii koowaad tukadeen salaada subax balse waxa jiifay Yaasir waxa ay u sheegeen in xilligii salaada la joogo balse wuu kici waayay waxay xasuusiyeen 100 riyaal waxa uu u degdegay in salaadu dhaafin si maalintaas 100 riyaal uu u helo صبحك الله بالخير يبا. صبحك الله بالنور أبوي كم باقي على طلوع الشمس يبا؟ في وقت أبوي يمديك تصلي maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa kulmay Maxamed iyo saaxiibkiis waxa uu u sheegay in maalintii uu helayo hadii uu salaada subax tukado 100 riyaal bishiina 3,000 oo riyaal halka sanadkii uu ka helayo 36,000 oo riyaal Maxamed saaxiibkiis waxa uu ahaa nin wanaagsan oo khayrka la jecel saaxiibkiis waxa uu u sheegay ma waxaad u tukanaysaa lacag u tukan maysid miyaa inaad hesho raalli ahaanshaha Allah Maxamed waxa uu fahmay xaqiiqada salaada habeenkii waxa uu kacay kol hore inta ayna soo qaylin saacadu waxa uu gabi ahaanteed badamiyay saacadii waxa uu galay salaad waxa uu xasuustay hadalkii saaxiibkiis ee ahaa
ha u tukan 100 riyaal ee u tuko inaad alle ugu dhawaato. استنى قبل ما تكبر شوف نيتك للصلاة، صلي لله ولا عشان 100 ريال؟ أصلي صلاة الفجر قربة إلى الله تعالى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الأذان والإقامة إذا أردت أن تعلم مستوى الإيمان عند إنسان ما فانظر إلى حالته عند الأذان. المؤذن كم مرة يقول حي حي يعني أقبل عجل على صلاتك. محمد wax badan ayaa iska bedelay waxa uu bilaabay dhageysiga quraanka muxaadarooyinka iyo duruustaba. Allahu akbar Allahu akbar. waa xilligii salaada waxa ag fadhiya walaalihiis waxa uu xasuusiyay in la gaaray salaadii balse walaalihiis way dhibsadeen hadalka Maxamed. waxa dhamaatay bishii nin waliba waxa uu dhowrayo waa 3,000 oo riyaal. nin waliba waxa uu ku faraxsan yahay lacagta la siiyay ilaa Maxamed oo iska diiday lacagtii. aabihiis ayaa la yaabay Maxamed waxa uu su'aalay sababta uu lacagta u diiday. Maxamed waxa uu yiri aabe hadii aan qaato lacagtan naftayda ayaan raali geliyay balse Allah subhanahu wa ta'ala ma aan raali gelin. يا يبا أنا إذا أخذت هذه الفلوس أرضيت نفسي وبعت رضا رب العالمين. kadib waxa uu waaniyay walaalihiis waxa uu ku yiri walaalayaal aabe waxa uu inoo ballan qaaday lacag si aan u ilaalino salaada balse Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu inoo ballan qaaday janno ay dhexdeeda yihiin xuurul ciin geedo iyo wabiyo iyadoo ay sidaas tahay salaada ma ilaalino taasi waxayna tusaysaa in uu daciif yahay iimaankeenu. يا أخواني أبوي وعدنا بفلوس كنا نهتم في الصلاة، والله سبحانه وتعالى وعدنا بجنة فيها حور عين وأشجار وأنهار ولا قمنا نهتم في الصلاة. وهذا وش يدل عليه؟ يدل على أن إيماننا بالله ضعيف. waxaa barnaamijkan soo koobay oo soo aruuriyay walaalkiin Cabdullaahi Cabdikariin Takar oo na idin soo gudbinaya. waxaanu idin leenahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.